jasiiradda ugu qaalisan adduunka hal habeen $25,000 ma ku siixan lahayd hotel ma booqan lahayd jasiiraddan haa baan isleeyahay marka ciidda la gaaro haddii ay lacagta kugu badan tahay iyo haddii kale dadku ma joojin doonaan u safridda oo halkan waxaa booqda 8 milyan oo qof sannadkii yacni lagu joojin maayo oo suuq naga badan ayaannu haysanaa nassau waa caasimadda iyo magaalada ugu weyn waddankan keligeed waxa ay martigelisaa oo ku nool 70% dadka jasiiradda oo dhan waa jasiiradda dalka madaxa bannaan ee Bahamas oo ka kooban ilaa 700 oo jasiiradood oo qaarkood yaryar ay yihiin gobolka ay ku taallo dalalka yaryar ee ku yaala waxa la isku yiraahdaa West Indies magaca Bahamas waxa uu ka soo jeedaa Bajamar oo afka Isbaanishka ku ah baddii gunta dheerayd badweynta Atlantikada ayay dhex taallaa waa jasiirad marka magaceeda la soo qaado lagu soo xusuusto dalxiis iyo xeebo quruxdooda aad la ashqaraarayso kana mid ah wadamada barwaaqa sooranka maraakiibta dalxiiska ee ka imanaya dhinaca badda Caribbean-ka ayaa soo gaara oo ay marinkooda tahay tani waxa ay dhaqaalaha jasiiraddan ka dhigtay mid barwaaqooba 60% dakhliga jasiiraddan waxaa sameeya maraakiibta dalxiiska ee raaxada badan ee dabaqyada isduldul saaran ah maxaa yeelay dadka ayaa ka soo dega oo dukaamaysi u yimaada jasiiraddan gaar ahaana magaalada caasimadda ah oo ay ku yaalaan dukaamo lagu iibiyo dahabka dhaymanka luulka qalinka iyo dhammaan agabka hiddaha iyo dhaqanka ee ay lahaayeen dadkii loogu yimid jasiiraddan dadka milyaneerada amaba maalqabeennada iyo kuwa dabaqadda dhexe ah oo jeebkoodu yara buuran yahay ayaa u badan socotada doonaysa in ay wakhti badan ay ku qaataan jasiiraddan quruxda iyo nabadda isku darsatay tani kama dhigna in dadka iska caadiga ah aanay booqan karin dhulbadeedkan ku yaala Atlantiga waxa kale oo ay caan ay ku tahay nadaafadda marka loo eego dariiqyada magaalooyinka goobaha ganacsiga iyo xeebaha lagu dabaasho intaba cuntada laga cuno waxa ugu badan cuntada dabiiciga ah ee aan gacanta lagu farsamayn sida noocyada kala duwan ee kalluunka argoosatada digaaga si iskiis ah u koray oo dabiici ah miraha iyo caleenta cagaaran halkan waxaa jasiiradda wax ka degan oo dhulku leh dadka caanka ka ah rugta filimaan samaynta ee Hollywood shakhsiyaadka halkan degaanka ku leh ee malaayiinta dollar ku bixiyay waxaa ka mid ah Oprah, Beyoncé, Jay-Z, Tiger Woods iyo Eddie Murphy jasiirad ay iyagu ay gooni ay u leeyihiin oo ay iibsadeen xagaagana ay ku baashaalaan ayaa halkan ku taal kor marka laga eego jasiiraddu waa cagaar dhirta badan awgeed xeebtu waa caddaan maxaa yeelay ciidda ayaa ah mid cad cirka iyo badduna waa buluug sida caadada ah intaasi markay israacaan waxaa soo baxa qurux la yaab leh oo lagu indhaqabuusado lacagtooda dollar ayaa la yidhaahdaa oo waa dollarka Bahamas halka dollar waxaa ku masawiran nin halgamaa ah caan ah oo jasiiraddan lagu maamuuso waa madaxweynihii ugu horreeyay ee madow ah ee dalkan xukuma kaasi oo lagu magacaabi jiray Sir Lyden Bendling dadka jasiiraddani 90% waa madow asalkooda laga soo waday Afrika dagaalkii kacaanka Mareykanka iyo ciidamada Ingiriiska dhex maray darteed ayaa Ingiriisku soo dejiyay dad madow ah oo aad u fara badan oo xor ah waa sababta madowgu aqlabiyadda ugu yeesheen jasiiradda iyaga oo ka sara maray dad caddaan ah oo Yurub ka yimid oo horay u deganaa waqtiyadii ka ganacsiga dadka madow ayaa Bahamas la dejiyay dad u badnaa ama ku dhowaad gebigooduba ahaa West African waliba waxaa farta lagu fiiqaa in asalkoodu gaano ay u badan yihiin Ingiriisku waxa uu jasiiraddan uu ku habsaday si uu u gumaysto sanadku markuu ahaa 1718 waa xilli aad iyo aad u fog balse waxa uu dalkan xornimada u qaatay oo uu ka qaatay Ingiriiska 10 July 1973 soo ururi sheekada oo meel kasta oo qurux badan oo adduunka ka mid ah waxaad ugu tagi doontaa qof madow ah waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee mar walba aad noola socotaan Bulqaas Media ayaad nagala socotaan fadlan haddii aad ku cusub tahay page-ka Bulqaas Media ha ilaawin inaad like iyo follow aadna soo tiraahdo haddiise aad tahay macmiil soo noqday sidoo kale ha ilaawin in muuqaalkan aad share garayso oo asxaab badan aad la wadaagto si iyagana asxaabtooda kale ay ula wadaagaan halkaasina ay wax uga bartaan wixii tale iyo tusaale ah waxaad noogu soo qori kartaan dhinaca commentiska aad ayaad u mahadsantihiin rabbiga ha idinla jiro
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.